waax ka mid ah ciidanka qaranku wuu fadhiyaa. waxaana lagu soo dhaweynaynaa garoonkii weligiiba jiray ee jiri jiray oo maanta dadka kale waxa ay yiraahdaan dee qoryaaba la isku gurtay anagu taayadu boob ma ahe anagu si gobonnimo baan u wareejinayna gobonnimo u wareejinayna marka sidaas ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada garoonkan waxa iska leh ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waana garoonkii ay lahaayeen ilaa weligood bay lahaayeen marka sababkii ay lahaayeen garoonkan marka waxa leh ciidanka qaranka Soomaaliland waxaan u ahaa garoonkii diyaaradaha cirka ayuu ahaa waa halkii laga difaacayay magaalada Hargeysa waa halkii laga sameeyay tababarada ciidanka cirka waa halkii lagu sameeyay ay ciidanka qaranku degayeen marka halkani waa garoon weligiiba ciidanka qaranka Soomaaliland uu lahaa ciidamada militariga ee qalabka sida nin kasta taatar kasoo leeyahay waxaan ku soo dhaweynaynaa garoonkii ay lahaan jireen ciidamadu oo maanta nabad qaba oo aan la isku haysanin oo aan cid qaybsanin oo inta cid gaar ka haysay kaasoo ku soo dhaweynaynaa garoonkan oo sidii Ilaahay ku abuuray weli oo ah oo sidii lagaga tagay ah oo nabad qaba oo deegaanku hungureynin oo xalaala wax waxyeello aan loo geysanin ayaanu ku wareejinaynaa gudoomiyaha gobolka inay naga gudoomaan baan duganaya ciidanka biliiska waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa ciidanka qaranka oo aanu ku wareejin doonaa haddaan nahay deegaankii annagoo u dhan odayaal caaqilo suldaano iyo dadka kale deegaankaba dadkan deegaanka horta aan mid ka yar taabtay waxa lagu yaqaanaa gobonnimo maanta garoonka halkan ku yaala deegaanadii kale ee sidan oo kale hanti ay dawladdu leedahay ku yaalay qaar baa qaybsadayba maanta annagu waxaanu naga gelbisaa garoon muddada dhowr iyo 40 sano ah 48 sano ah uu dadka deegaanku ilaalinayay oo dhex deganayn beer laga samaysan ayaanu ciidanka qaranka ku wareejinaynaa maanta waxaan nala joogaa baro saabkii gobolka Maroodijeex oo halkan noogu yimiday oo hogaaminaya ciidankii qaranka garoonka waxa aanu ku wareejinaynaa baro saabka ayaanu ku wareejinaynaa iyo ciidanka kulana shaqeynayna wassalaamu calaykum abaandulaha koobaad ciidanka afguduud chananka kale doolaal labadaas sarkaal baan u salaamayaa ciidanka qaranka aad baan gudoomiyaha degmada gudoomiye ku xigeenka chief caaqilada cuqaasha suldaanka dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaan kadib waxaan maanta halkan ku wareejinaynaa garoonkii ciidanku ku lahaayeen deegaanka dhamal oo ku wareejinayno baro saabka anagu haddaan cuqaalahay waxaan xukumo baro saabka isagana ku wareejinaa si nabadgelyo ah waxaan halkan ka ballan qaadaynaa inaan kula shaqeynayno ilaa inta lagu xidhayo deyrka ee la hagaajinayo waxaanan dadka inta badan markaynu nahay dawlad wax badan oo wanaagsan oo jira ciidanku waa kuwa inaga ilaalinaya waana wadankoodii waana dhulkoodii markaan leenahay ciidan mar ku wareejinayna macnaheedu waxa weeye waanu la shaqeynaynaa qaabkii loo qurxin lahaa garoonkaas farxad weyn way noo tahay anagu haddaan reer Dar es Salaam waxaan halkan ka cadeynaa inaan garoonka gudoomiyaha ku wareejinay farsamadiisa dambana aanu ka shaqeyn doono farxad weyn way noo tahay waliba qalbi furan baan ku soo dhaweynaynaa dhamaantii saraakiisha kale aad iyo aad baan u salaamaya waxaan leeyahay degmooyinka kale ha ku daydaan sidaan garoonkaan u bixinay kelmadii caydiid baan raacinayaa baro saabka runtii baro saabka gobolka Maroodijeex waa baro saab ku suntan wanaag waa baro saab ku suntan xalinta khilaafaadka waa baro saab ku suntan inuu anaga isu kaay soo dhaweeyo anagu gobolka markaan joogno anagu waxaan cuqaasha gobolka ka howlgashaa intii baro saabkaasi noo joogay ilaahay baa sayga sareeyay xafiiskii soo furan hawsha hoos noo dhameeyo qoysaskaygu dhex galo inta baan ugu hambaliyay waxaan leeyahay hore u soco salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa aad iyo aad anigu madnaqaya gudoomiyaha gobolka baro saabka sida wanaagsan ee aw nimbadee jaamacad buu ka soo baxay isagoo jaamacadda khilaafka ayuu ka soo baxay dab wixdees khilaafa ayuu wuxuu ka soo baxay inuu heshiisiyo kiyo kaas aad iyo aad ugu madnaqaya ilaahay dibkii kor u soco kor u soco ilaahay dibkii waa degmada caasimadda laga difaaci jiray halkani markii dagaalkii 77kii garoonkani waa kii laga difaacayay caasimadda oo sumadda dheeraadka abay leedahay oo waxa la diyaaraddu waxay soo mari jirtay buurtaasay soo raaci jirtay halkan kaga bixi jirtay Hargeysa garoonkana laga difaaci jiray waa yahay halkan degmadan markaa maanta haddaan nahay Dar es Salaam waxaanu ku wareejinaynaa gudoomiyaha gobolka Maroodijeex garoonkan oo sidii Ilaahay ku abuuray weli oo ah oo sidii lagaga tagay ah oo nabad qaba oo deegaanku hungureynin oo xalaala wax waxyeello aan loo geysanin ayaanu ku wareejinaynaa
guddoomiyaha gobolka inay naga guddoomaan baan dogaynaya ciidanka militariga ee qarankan u jeeda ciidanka militariga ee qarankana waxaan u haynaa kalgacal gaar ah weynaha halkan isugu yimi iyo ciidamada militariga ee barasaabku hogaaminayo sarcadaad aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa haddaanu nahay deegaankii cuqaashii deegaanka nahay waxaana lagu soo dhaweynaynaa garoonkii weligiiba jiray ee jiri jiray oonu maanta dadka kale waxaabay yidhahdaan dee qoryaaba la isku gurtay annagu taayadu boob maahee annagu si gobannima baanu wareejinayna gobannimaanu wareejinayna marka sidaasaan idinku soo dhaweynaynaa ku soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhulkan waxaa deganaan jiray ciidamadii cirka ciidamadii difaaca cirka ee Soomaaliyadii la isku oran jiray waa halkii Hargeysa laga difaaci jiray waxa yar faahfaahin doona Banduulaha odayaasha way naga aqbaleen in ay istaagaan oo ay asteeyaan meeshuu ahaan jiray guddi baan ugu saaray guddidaas waa guddi farsamo waa 13 qof oo wax yar mooyaan inta kale ay cuqaan yihiin badankoodina soo joogay 77 markii halkan la deganaa ciidamadu deganaayeen raggii joogay baan ku daray ragga garanaya meeshii ijaarkiisa xaydaankiisu ahaa raggii baa jooga guddi baan ugu saaray guddida waxa loo yaqaan waa guddi farsamo waxay la shaqeynayaan ciidamada qaranka dadna waa la asteynaya waa la isla garanaya laakiin maanta waxa aniga igu soo wareejiyeen deegaanka reer Sabawanaag reer Daar es Salaam garoonkii ciidanka qaranka ee 77 anna imika laga bilaabo waxaan ku wareejiyay Banduulaha guud ee ciidanka qaranka iyo taliyaha qaybta 11 iyo ciidanka kale hogaanada kale oo dhan ee halka jooganana maanta ku wareejiyay dabeedna waxa isku soo haraya ciidamada iyo guddida farsamada oo kaliya sidaa darteed odayaasha nagala shaqeeyay sharaf iyo karaamay mudan yihiin waan si fiican baan isu afgaranay markaan u gorfaynay wax walba waxa kale oo aan idin sheegayaa reer Soomaaliland oo hawada idin soo marinaya war ku dayda reer Daar es Salaam ku dayda reer Dabal Dacarle dawladuna meel kastoo ay ku leedahay raad oo ciidankoodu uu raad ku lahaan jiray laga hadhi maayo waa loo tegayaa marka la adkaado maalinba la adkaado dawladda waxqabad iyo wada jir waxa leeyahay wixii hanti ummadeed lahaa ee gaar ahaan ciidamadu ay lahaayeen waa la soo celinayaa sidaa darteed waxaynu gacmahaynu isqabsanaynaa ciidanka waynu mahad celinaynaa iyaga soo codsaday oo yimi halkan cidi ismay qabsan cidi kuma haysato odayaashii deegaanku waa kaasoo way qireen suldaanku wuu qiray cuqaashu way qirtay aqoonyahankii kale deegaanku way qireen guddoomiyihii degmada iyo ku-xigeenkiisu way qireen inuu dhulkaasi maanta laga bilaabo uu yahay dhul ciidanka qaranku leeyahay laaxina laga jari maayo sidaasaa inoo ballana waxa isku soo hadhaya sidaan hore u soo sheegay ciidanka qaranka iyo guddida farsamada iyagaa weelaynaya oo astaynaya oo calaamadaynaya dhulkaasoo dhan sidaasaan ugu soo dhaweynayaa Banduuluhuna inuu hadlo waana ku wareejinayaa dhulkaas maanta laga bilaabo intaanu hadal Banduulaha guud ee ciidamada Generaal Cabdirasaaq Siciid Bulaale waxaan kugu wareejiyay Generaale dhulkii ciidanka qaranku uu lahaan jiray 77 oo ay igu soo wareejiyeen odayaashii waxgaradkii ningarboodkii suldaankii cuqaashii dhalinyaradii deegaanka kan goobta qiimaha leh ee ballaaran ee isku siman ay igu soo wareejiyeen ee ciidankii qaranku lahaan jiray adigana Mr. Generaale
maanta laga bilaabo waa hanti idinku aad leedihiin ciidanka qaranku leeyahay waan kugu wareejiyey wasalaamu calaykum gudoomiye aad iyo aad baad mahadsantahay waa gudoomiye waan la wareegnay gudoomiyaha aad baan ugu mahad celinayaa shaqada uu ka soo shaqeeyey barasaabka guud ee uu ka soo bilaabay dhalinyaro iyo odayaal iyo caaqilaba deegaanka oo dhan muddana uu ka shaqaynayey iyagoo gacmaha is wada haysta ilaa suldaankooda ilaa caaqiladooda ilaa gudoomiye xigeenka daarasalaam ilaa gudoomiyahooda ilaa degmo ahaan ilaa heer gobol uu ku soo daadihiyey kadibna annaguna aanu ballan u qabsannay aanu isugu nimaynu maanta joogno ilaahaasaa mahadlan ugu mahadnaqaynaa oo si qurux badan aynu isugu wareejinayno dhulkan waxaa lahaa ilaa iyo 77 dowladdii hore Soomaaliya ciidankeeda cirka ka difaaca cirka dhammaan dhulkaasoo dhul aad u ballaadhana laga soo bilaabo 91diina ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa la wareegay qayb ka mid ah saddex waaxood marka loo qaybiyo dhulka gudoomiye waax ka mid ah ciidanka qaranku wuu fadhiyaa muddana wuu deganaa laakiin laba waaxood oo ka waaweyn waaxdaas way maqnaayeen waa kuwa aad ka soo shaqayseen idinka iyo dhalinyarada ningarboodka odayaasha caaqilada suldaanka iyo heer tuulaba dhammaan aad ka soo shaqayseen oo si qurux badan idinkoo daadihinaya degmadii iyo gudoomiyihii barasaabkiiba aad ciidan qaran ahaan nagu wareejisaan waxaan idiga mahadnaqayaa dhammaan inta aan soo tiriyey ee dhalinyaro iyo odayaal bale iyo caaqilaba waxaan kaloo mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada hogaamadii noo xil saarnaay annagana guddi farsamo ahaa ee ay arrintani khusaysay ee iyaguna ka shaqaynayay muddaba la dhiilgaraynayay barasaabka iyo odayaasha maanta oy taariikhdu tahay 8 waxaanu la wareegnay waaxihii kale ee naga maqnaa garoonka dhamal dacar oo dee iminka kayn jiqa ah kaasoo aan ku darayo weliba xerooyinka ciidamadu caasimaddu way ballaadhatay intaasoo milyan bay marayaan dadweynuhu waxay maraysaa marka la eegana waxay noqotay fadhiisimada ciidamadu kama marna koonfurta laakiin waxay u badan yihiin xagga waqooyiga sidaa awgeed waxaanu qorshaynaynay dawlad ahaan in muxuu ahaa laga dhiso xerooyinkan degdeg loo dhiso guddigaa farsame ee barasaabku cayimee 13 ah iyo hogaamadayadu oo guddi farsamaha nuu saarnay